Xisbullah waxay ku hanjabaysay deegaano badan oo Israa'iil dadka Israa'iiliyiinta ay isaga qaxi doonaan halka dhanka kale Israa'iilna ay amar ku bixisay xaafad lagu magacaabo Daahiye oo ku taalla magaalada Beirut in la isaga barakaco. Iiraan oo dhankeeda safar ka wada gobolka si ay uga dhaadhiciso wadamada Carabta iyo kuwa kale Muslimiinta in cadaadis xooggan la saaro Israa'iil. Marka ka imaanaya gobolka Bariga Dhexe ayaa warar aad u walaac badan muujinaya, taas oo muujinaysa dagaalka u dhexeeya Xisbullah iyo Israa'iil inuu sii xoogaysanayo. Hadallo kala duwan ayaa ka soo baxay Israa'iil iyo Xisbullah kuwaas oo isweydaarsaday eedayn iyo hanjabaad aad u xooggan. Israa'iil waxay amartay in xaafadda Daahiye ee magaalada Beirut oo ay u aragtay inuu yahay saldhigga ugu xooggan oo Xisbullah halkaasi ku leedahay inay isaga barakacaan dadka ku nool. Maalmihii u dambeeyay waxaa soconaya duqeymaha xooggan ee Beirut lagu garaacayo, iyadoo maalin ka hor la duqeeyay xaafad waqooyiga ku taalla oo ay degan yihiin dadka Masiixiyiinta, taas oo walaac xooggan caalamku ka muujiyay maadaama Israa'iil ay muuqatay inaysan kala soocayn dadka Lubnaaniyiinta, kuwa Muslimiinta iyo kuwa aan Muslimka ahayn intaba. Xaafadda Daahiye oo koonfurta Lubnaan ku taalla waxaa loo arkaa inay yihiin meelaha saldhigyada ugu waaweyn ay ku yaalaan ee ururka Xisbullah uu leeyahay, waana meesha lagu dilay hogaamiye Xisbullah Xasan Nasrallah iyo hogaamiyaal kale. Israa'iil hadda waxay amraysaa halkaas inay isaga barakacaan dadka ku nool, duqeymaha ku haysan ay sii xoojin doonto, iyadoo duqeyntii ugu dambeysay xalay ay ka fulisay Beirut ay sheegtay inay ku beegsatay baqaar dhulka hoostiisa ku yaala oo hub lagu kaydinayay sida ay hadalka u dhigtay. Dad badan ayaa la sheegay in duqeymihii ugu dambeeyay inay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Dhanka kale, hogaamiye ku-xigeenka Xisbullah ahna hadda hogaamiye Naciim Qaasim ayaa soo saaray hadal isagoo sheegay Xisbullah dhankeeda in diyaar u tahay xabad joojin aan rasmi ahayn oo maalmo kooban ah. Haddii taas la heli waayana waxa uu sheegay inay kordhi doonaan deegaanada Israa'iil ee dadku ay ka barakici doonaan. Israa'iil waxay sheegaysaa deegaanada ku yaalla waqooyiga Israa'iil iyo koonfurta Lubnaan oo dadka Israa'iiliyiinta hore uga barakaceen in si xoog ay ugu celin doonto Israa'iiliyiinta halkaasi laga barakiciyay. Naciim Qaasim dhankiisa wuxuu sheegayaa in meel kasta oo Israa'iil ka mid ah ay beegsan doonaan, awoodna ay u leeyihiin, taasina ay keeni doonto 2 milyan in ka badan oo Israa'iiliyiin ah inay isaga barakacaan gudaha Israa'iil. Hadalka Naciim Qaasim wuxuu ku soo beegmayaa xilli maalmihii u dambeeyay la dareemayay in dadka Israa'iiliyiinta ay ka cararayaan gudaha Israa'iil, kuwaas oo raadinaya wadamo kale oo ay aaminsan yihiin inay naftooda amni ugu heli karaan maadaama duqeymaha Xisbullah iyo Xamaas ay ku hayaan deegaanada Israa'iil ay degan tahay oo aad u kordhay. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda Iiraan ayaa la sheegay inuu safar ku marayo gobolka isagoo booqan doona dalka Turkiga, Jordan iyo Masar, kuwaas oo kala hadli doona sidii loogu cadaadin lahaa Israa'iil iyo Mareykanka in la joojiyo xasuuqa ka soconaya magaalooyinka Gaza iyo si lamida Lubnaan. Iiraan hore ayay u weerartay Israa'iil, khasaare xooggan ay ugu geysatay. Israa'iilna mar kasta waxay sheegaysaa inay aargudan doonto, inkastoo weli aan la ogeyn xilliga rasmiga ay aargudan doonto iyo waxyaabaha ay beegsan doonto. Iiraan dhankeeda inay ka hortagto in aargudasho lagu sameeyo iyo in dagaalka la joojiyaba labadaba xoog ayay saaraysaa, waxayna ku cadaadinaysaa wadamada ay u aragtay inay weli ku dhow yihiin dhanka Israa'iil iyo Mareykanka inay ku cadaadiyaan sidii xasuuqaasi lagu joojin lahaa. Sidoo kale, Israa'iil waxay wadaa duulaan ka dhanka Syria, iyadoo la sheegay ciidanka Israa'iil in howlgal ballaaran ay ka wadaan xuduudka u dhexeeya Syria iyo Israa'iil, halkaas oo Israa'iil ay aaminsan tahay deegaano badan oo hadda ka hor loo yaqaanay militari ka caagan yihiin ay isku fidiso ay u suurtageli doonto in amni ay helaan dadka Israa'iiliyiinta. Waxaa maamulka Yuhuuddu ay sheegayaan in deegaanadaasi laga yaabay kooxaha Islaamiyiinta Iiraan taabacsan laga yaabo in halkaasi soo galaan, si ay uga hortagtana ay isku dayeysaan ciidankeeda dhufaysyo cusub ay ka qotaan gudaha Suuriya.